عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واتحانيه لما بحي مشروع على دقالك نورك قيبتي سيد سقالية طبناعد كسودو channelka walaal mashruucan la dagaalanka marka hore wuxuu inoo marayay mid isna faruuleeyay ayaa ku hadaaqay alle wuxuu habeenaya maalin walba uga digaa madowga iyo iftiinka dhexdooda masaarkayeen addoomihiisu fariimaha tooska ah ee u soo dirayo maaha qahray fahmayaan oo ay ku cibro qaadanayaan laba kastaa digniin bay sidaan maanta qaybteena 19aad waxay ka bilaamaysaa furihii maan qaadan ee waan kala jeedsaday oo halkii albaabka iga xigay ayaana baaray waxaan sii maqlayay gabadhii oo soo mudana furahaaga mase jaleecin mastercardkayga ayaan haabhaabtay oo waxaan karaystay hudheel kale habeenkaa cabsiya amarkaaga ayaa miranayay laabtayda oo hurdo maaladin waxaan aaminsanaa in saacaddii la doono albaabka laygu soo jabin karo markaan xasili waaye ayaan beerag u diray fariin email ah oo aan ku leeyahay sir I need safe exit urgent layma soo jawaabin intaa oo taasoo igu sii kordhisay argagax iyo baqdin habeenku dheeraa oo shanqadh badana marka aad cabsi dareemayso waxaan doono in aan mar ka baxo hudheelka oo aan fadhiga laygu qaban go'aan ku dhawaan ku calool adeegi waayey laba boglin ayaa wehel ii noqotay habeen aniga oo soo fadhiya ayuu ii dhammaaday argagaxna waa ii dheeraa aniga oo rafaaday oo aan waxba ku noolayn ayuu waagi dilaacay naftaydii oo didsan ayaa taleefon ka ballansatay falayd nasiib xumadayda waa la ii waayey diyaarad baxaysa waxaan ku waashay waa emergency cid ii dhegaysatay ma jirto waxaan raadiyey wakiilka arrimaha socdaalka noo fududayn jiray ee nairobi fadhiyey wuu iga qaadi waayey taleefonkii waan ku celceliyey lama heli karo markuu yidhaa wax igaga xanuun bandaa ma jirto wuu xidhan yahay markuu yidhaana wadnaha ayaa istaagi gaadhay waxaan u qaartay ciyaar cusub oo uu ururku igu bilaabay waa habeen cimrigayga ka go'an oo aan dhaawac u geystay caafimaadkayga goor ay xeedho iyo fandhaal kala dhaceen oo aanay nafi ugu jirin ayaa la ii soo jawaabay waxay ii sheegeen in aanay waxba jirin anna waan qariya dareenkayga dareenkaygii aniga oo aan aaminsanayn dejintooda waxay ii siiyeen assignment cusub oo muqdisho ah beerag ayaa ii soo sheegay in uu diyaaradda wata sir William Don ay iga qaadi doonto madaarka Jomo Kenyatta ee magaalada Kenya oo aan la qabto wax kasta oo uu iga baahdo aniga oo aan dharkaygii ka doonan hudheelkii ayaan qabsaday taxi Uber ah oo i geeya madaarka Sir William ayaa si weyn ii soo dhaweeyey wuxuu ii soo fiiqay koob uu khamri ku shubay waan ka cududaartay oo waxaan u sheegay in aanan cabbin khamriga Sir William Don isagoo ila kaftamay ayuu igu yidhi ka aan cabbin ka mid maaha dad yowga ilbaxa ah kuma jiro ayaan ku yidhi ilbaxa waxaan weydiiyey oo aan ku yidhi mudana kulankii duwayshow durtaba sannada ayaa ka soo wareegay anigoo u raaciyey howlihii shidaalka miyaad bilaabaysaan Sir William ayaa igu jawaabay dan baa ka soo horumartay waxaan ku caliyey dan ka weyn miyaa jirta dantii aad doonayseen Sir William ayaa ku gaabsaday aadamuhu weli awood umuu yeelan fahamka wakhtiga sida aynaanu fahmin dumarka markaad aragto inuu mawduuca bedelayo waxay ka dhigan tahay waxaanu rabin inuu wax ka sheego annama sii jeclaysan inaan ku dariqiyo waxaan ka soo degnay madaar gaar ah oo ku dhex yaala xero si weyn loo ilaaliyo oo ku taalla Benghazi Liibiya hore uma tegin Liibiya waxaan ku yidhi maxaad halkan inoo keentay wuxuu ii sheegay in uu howlo kooban uu ka qabsanayay kadibna aanu u baxayno safarkii muqdisho diyaarad yar oo 2 jiin leh oo aan saarnay markaan ka soo degnay ayaan hool midigta iga qabtay ku arkay booyad lagu rarayo wax la yaab iila muuqday ilaa intaan ka libdhiyey waan sii jaleecayay cabaar kadib waxaa taleefonka noogu soo dhacay security alarm nafaraya in aanan saacadaha soo socdo tegin suuqyada Benghazi iyadoo laga cabsi qabo in qarax dhaco fariintaas amni sideeda ayaa loogu dhaqmayaa inta badanna sida ay u sheegeen ayay u dhacdaa khatartaasi 2 saacadood kadib waxaa dhacay qarax
xooggan oo gilgilay magaalada Benghazi. warkii ayaan furay si aan wax uga ogaado waxa dhacay iyo khasaaraha uu geystay. tacajab ayaan labada dhaban gacmaha saaray. Al-Jazeera ayaa ka waramaysa qarax ruuxay dhismaha warshada sifaysa shidaalka oo ay ku qaraxday booyad laga soo buuxiyey waxyaabaha qaraxa ee TNT ka mid tahay. hadhaagii booyadda ayaa ila ekaaday tii la rarayay ee aan ku arkay hoolkii. mase xaqiijin karo. fiidkii markaan isku nimid Sir William Doon ayaan si sarbeeba u weydiiyey in qaraxda sameeyay dantiina ayaa ku jirtay miyaa. Sir William ayaa igu yidhi weligaa tallaabada in kugu filan qaad. madaxa ayaan ruxay aniga oo u muuqda arday edeb badan. markaas ayuu ii furay sheeko gaaban oo badanaa u dhacaysa hanaan sarbeebeed. wuxuu igu yidhi we create the choice and then we move it to capitalize on that choice. kolkaas ayaan si toos ah ugu idhi markaas wixii maanta dhacay faa'iido ayaa ku jirta anigoo si dadban u weydiinaya in ay qaraxa iyagu geysteen. Sir William wuxuu igu yidhi isagoo hanjabaad ka muuqato ha ku hafan badweynta siyaasadda danta ku dhisan. intuu iga dhaqaaqay ayuu igu soo tuuray waxay dantaadu ku jirtaa inuu afkaagu daboolnaado. heestii hibo maxamed guddoon hibo nuura ay qaadaysay ayaan soo xasuustay. ha fikri naftaydaay weligaa ha fududaan ha u fiirsan wax dhacay jacaylkana ha faragelin. maanta qaybteena 9aad halkaas inoogu joogaysaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.